kuma General Morgan halkee ayuu ku dhashay aqoontiisu waa heerkee ciidanimada halkee ayuu ka gaaray isagii siyad bar maxay isu yihiin dabeecadiisu waa sidee balwad miyuu leeyahay hantidiisna waa mise inta muuqaalka ayaa ku daawo doontaa ee kor fadlan page-ka like dheh followna na soo dheh si maalin waliba aad noola socoto maasanid magaciisu saddexan waa maxamed saciid xirs oo loo yaqaan General Morgan wuxuu ku dhashay degmada Qardho ee gobolka Bari sanadkii 1949 waxbarashadiisa hoos wuxuu ku qaatay magaalada Boosaaso kadib wuxuu wareegay magaalada Muqdisho sanadkii 1967 ayuu ka mid noqday ciidankii militariga ee Soomaaliya waxa waxbarasho leeli sargaal loogu diray dalkii Midowga Soviet muddo 3 sano ah dalku wuxuu dib ugu soo noqday kadib markii uu dhacay inqilaabkii militariga oo dalku gacantu galay ciidanka Morgan waxbarashadiisa sar wuxuu ku qaatay dalka Mareykanka wuxuuna shahaado master ka qaatay the United States Army Command and General Staff College ee gobolka Kansas halka way ugu baxdeen Ernest Morgan ee maanta loo yaqaano waxaana loogu magac daray xilligan nin caan ka ah Mareykanka maxamed ayaa ka mid ahaa ciidankii loo tababaray shamshootarka ama kooxda aanshiishka la gafin waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa shamshootarada ugu khatarsan ee Soomaaliya xilliga sidoo kale wuxuu ka mid noqday taliyaashii ururada ciidanka goobaha uu caanku ku ahna waxaa ka mid ahaa qaybtii 12aad ee gobolada dhexe iyo qaybtii 16aad ee gobolada waqooyi Soomaaliya shaqooyinku soo qabtay dhamaadkii sanadihii 8meedkii wuxuu noqday wasiirkii gaashaandhigga ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu noqday wasiirkii howlaha guud iyo guriyeenta ee Soomaaliya Morgan iyo Somaliland jarnaalku waxa qiyaastii 1986 loo bedelay goboladii waqooyi ee Soomaaliya si loo dejiyo xaalad kacsan oo uu abuuray taliyihii isaga ka horeeyay ee General Gani Morgan ayaa kula dhaqmay gacan dabacsan marka loo barbardhigo taliyihii ka horeeyay taa oo ay ugu yareen aaneesti ahayd kani waa moogay muddadii uu ahaa taliyaha ciidanka qaybta 26aad ee gobolada waqooyi ayaa jamhadii SNM ay dagaal ay ku qasbanaayeen ku soo galeen magaalooyinka Burco iyo Hargeysa dadka degan gobolada waqooyi gaar ahaan beelaha Isaaqo waxay sheegaan in xilligii Morgan loo geystay xasuuq aad u baan burburkii dowladii kacaanka 1991 magaalada Kismaayo xarunta Jubbada Hoose waxay ahayd magaaladii ay u soo qaxeen inta badan dadka beesha daarood ee ku nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho kadib markii maleeshiyaadkii jamhadii USC ee dagaalkii u rogeen mid qabiil ah oo isir lagu beegsanayo ama la doonayo in lagu ciribtiro maxamed iyo ciidamo badan oo hogaaminayo waxay ka mid ahaayeen dadkii Kismaayo u qaxay General Maxamed Saciid Xirsi ma yeelin si la mid ah madaxdii hore ee dalka ka talinaysay qaarkood u baxsadeen dalal shisheeye gaar ahaan dalka Kenya iyo kuwa Carbeed wuxuuna isku dayay inuu hogaamiyo maleeshiyaadkii beelaha daarood kuwa uu ku dagaalamay magacyo jabhadeed tartankiisii aqalka sare sanadkii 2016 wuxuu u orday inuu ka mid noqdo aqalka sare ee Soomaaliya oo markii ugu horeysay la sameeyay waxaana aqalka sare uu ka koobanaa xilliga 54 xildhibaan oo dowlad goboleedyada matalayay waxaana labada musharax ee Bootaan Barre iyo Maxamed Saciid Xirsi ee kala saarayay baarlamaanka Puntland waxaana Bootaan Barre Samatar uu ku guuleystay 38 cod halka General Morgan uu helay 27 cod oo kaliya musharaxnimadiisii Puntland Maxamed Saciid Xirsi wuxuu ka soo degay magaalada Boosaaso wuxuuna si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu tartamayo xilka madaxweynaha Puntland jarnaalka ayaa kadib booqasho ku maray ilaa magaalada Kalkacyo wuxuuna deeq u lacageed oo balan qaaday uu fidiyay jaamacadana wala dhisinay degmada Qardho garoonka Mira Awaare ee Garowe jaamacadda BSU ee Garowe sidoo kale ayuu ka sameeyay magaalada Kalkacyo taa oo loo arkayay inay qayb ay ka tahay ololihiisa doorashada inta waa hordhicii sheekadeena markaana aanu gudagolno noloshiisa gaarka ah dabeecadiisa maxamed saciid xirsi
dadkii qaani waxay sheegaan inuu yahay nin aan dhoola cadeyntiisa aan badnayn dabeecadiisa saxdaana weli waa lagu wareeraa balwadiisa Morgan balwadiisa ugu weyn ayaa inuu aad u cabo sigaarka sidoo kale wuxuu aad u jecel yahay kafeega hantidiisa saxda Morgan lama oga hasaati wuxuu leeyahay sida la xaqiijiyay guriga ku kala yaala Kismaayo Kenya iyo Muqdisho sidoo kale wuxuu leeyahay gawaari kala duwan maxaadan kale aad ku ogaan General Morgan daawade jarnaalka waxa sodog u ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed siyaad bare wuxuuna qabay canab maxamed siyaad bare oo ay dhashay maama Qadiijo sidoo kale wuxuu haystaa 3 baasaboor wuxuuna saaxiib dhow leeyahay Abdiraxmaan Faroole kuma sanad la jaanqaadka sheekadan gaarka ah ee General Maxamed Saciid Morgan aragtidaadana qaybta hoose noogu reeb si na sheer garay maasanid